waxaan maanta halkan fariin iyo digniin wada socota uga direeyaa shacabka reer Somaliland gaar ahaan oo ay khusayso wadooyinka. waxaa farxad weynaa in maanta magaalada Hargeysa wadooyin badan ka socdaan iyo wadanka intiisa kale mashaariic badan oo wadooyinka qaar la dhameeyay iyo qaar hadda gacanta lagu hayo. waxaan doonayaa inaan tusaale soo qaato wadada bypasska ama 200 wadadaas waxaa loogu talagalay in magaalada dusha ka marto halkaas oo gaadiidka waaweyn ee u kala gooshaya dekada caalamiga ee Berbera iyo wadanka aan jaarka nahay ee Ethiopia ay maraan gawaarida xabuulka sida ee waaweyn. gawaaridan kale ee shacabkuna waa iyagana waa loo ogol yahay. marka waxaan doonayaa in channel-kan uga faa'iideysto wadadii waxay noqotay meel loo dalxiis tago maadaama wada qurux badan tahay oo dhamaatay hadda oo aan wali la furin laakiin calaamadihii waxay yar u dhiman yihiin inay noqotay goob lagu dalxiis tago oo dadkii ay moodayaan xadiiqad isku sawirayaan wadada dhexdeedii iyo dawaaradihii wadooyinka ku yaalay. waxaan uga digayaa shacabka reer Hargeysa inay iska ilaaliyaan wadadaas maadaama ay tahay halis shilal badan keento. shilalkuna waxa weeye waxaan u samaysanay wadooyinka fiican iyo kuwa waaweynba si aan u dhimi lahayn shilalka wadankeena ka dhaca sanad walba. marka ilaahay ma haddii wadooyin waaweyn loo sameeyay wadadii Berbera corridor dhamaad tahay tii kale galbeedka kala baydhiyo ilaa garaan hadii la isku xidhayo. waxaan uga digayaa wadooyinkaas shacabkeena inay iska ilaaliyaan aysan u dhawaanin sababtoo ah dhibaatooyin badan baa ka dhici kara shilal baa ka dhici kara. marka waxaan uga digayaa fariintaan u dirayaa hawadana u marinayaa telefishinka qaranka u marinayaa inay ka fogaadaan. Assalaamu calaykum.